نولاناي لحدانكي لقويدي نديسي لحيا لباتنك جون قرمان نولاناي لحدي ساع قرمان لباناي كود اللوليو لبا مدودي باناي كوا عدوغي لايو استعماركي لوميو كوا عدوغي لايو استعماركي لوميو ليدن باناي غورمان لبناناي لحدانكي لقويدي نديسي لحيا لباتنك جون قرمان نولاناي لحدي ساع قرمان لباناي كود اللوليو لبا مدودي waxaan halkan uga soo jeedinayaa hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sanad guuradii 62aad ee ka soo wareegtay midowgii labada gobol iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliya runtii caawa saacadda aan joogno waa saacaddii la saaray calankii buluugnaa ee midnimada muujinayay waxaan soo dhaafnay 26 Juun oo ahayd maalintii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed ee buluuga la saaray caawana waa maalintii midowgii labada gobol iyo aasaaskii jamhuuriyadda federaalka ay dhalatay waxaan halka rabaa marka hore inaan Ilaahay uga barino naxariistii janno intii ka soo qayb qaadatay xorriyaddii iyo dadaalkii faraha badnaa ee dhiigga iyo nafta iyo waqtiga iyo maalkaba uu ku baaba'ay ee bulshadii Soomaaliyeed ee xilliga nooleed ay u geysatay siday u helayd xorriyaddooda oo u noqon lahayd dal xor ah oo la mid ah dalalka caalamka oo iraadadiisa iyo mustaqbalkiisa gacanta ku haysta 62 sano marka dhinac laga fiiriyo waa waqti kooban marka dhinac laga fiiriyo waa waqti badan ummadda Soomaaliyeed muddadaas ay xorka ahayd waxay soo martay marxalado kala duwan iyo duruufo kala duwan waxaad ogtihiin 30 sano markay dawlad ahayd oo duruufaheeda gaarka lahayd waxaa xigay dagaalo sokeeye oo muddo socday waxaa abuurmay dawlad laga soo bilaabo 2000 waxaa ilaa hadda ummadda Soomaaliyeed u dhisan dawlad federaal ah oo awoodeeda wili ay kooban tahay oo dalkii wili ay haysato dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah dhinaca amniga ah dhinaca dhaqaalaha ah dhinaca arrimaha bulshada ah dawladeennaas guud ahaan duruufahaada ku jirta waxay sababtay in wili bulshadii Soomaaliyeed ee u naaloonaysa xorriyadda oo sugaysay dawlad u adeegto danahooda ka shaqeysa inay wili ay gaabis ka tahay adeegii loo geysan lahaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo xuquuqdooda lagu ilaalin lahaa hadday dalka ku nool yihiin iyo hadday dibadda jiraanba wixii dhacay ka shallaayimayno iskuna canaanan mayno qadar eebbe ayay ahayd duruufahaas kala duwan ee la soo maray waxaana hor yaalla hadda waa mustaqbalka oo u baahan meeshii in laga ambaqaado
oo bulshada Soomaaliyeed wixii ay ka sugaysay mas'uuliyiintooda inay helaan waxaad ogtihiin waxay ku soo aaday sanad guurada tani xilli duruufihii jiray ay ugu darsoomeen abaar baahsan oo geyga Soomaaliyeed iyo geeska Afrika waa cabsi looga qabo meelaha qaarkoodna ay gaartay marxalad macaluul ah waxaa runtii arrintaas dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan halka uga dirayaa baaq inay u istaagaan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira ee dhaqaalaha haysta sidii u gargaar lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo badankiisa hantidoodii ay halis ku jirto boqolkiiba 70 bulshadeenu waa reer miyi haddaysan ka badnayn ama 80 ahayn waxay ku tiirsanaayeen waa xoolaha nool hadday abaari dhacdo waxaa soo gaaraya dad badan oo hantiilayaal ahaa oo xoolo haystay ayaa maanta waxay qarka u saaran yihiin inay cayr noqdaan oo ay suuragal ahayn inay ubadkoodii iyo qoysaskoodii ay quudiyaan waxaa kaloo iyadana intii magaalooyinka jooga halis ku haysta maxaa yeelay dhaqaalaha inta magaalada joogta iyo dawladuhuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas nool iyo dhaqaalaha ka soo gala dhoofkiisa oo dad aad u fara badan oo kala duwan ay ka manaafacaadsadaan midka dhaqda keliya duruufta ma haysato kii iibsaday jiray kii dhoofin jiray kii ka sii ganacsan jiray kii gaariga ku qaadi jiray dawladdii ka heli jirtay canshuurta oo ciidamada iyo amniga ku ilaalin jirtay intaasoo dhanba saamaynta abaartu waa ay gaaraysaa waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta dawladda ee dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan bulshadaba ay arrintaas iska kaalmaystaan oo ay dhinaca iska dhigaan duruufaha mararka qaarkood ka mashquuliya u adeega bulshadooda dawladda Puntland iyada oo mabaadiida dawladnimo iyo aasaaska ah in bulshada loo adeega ka duulaysa waxa ay xoogga saari doontaa sidii ay bulshada uga qayb qaadan lahayd intii karaankeeda ah inay u adeegto oo ay weliba arrimaha abaaraha ayaamahan xoogga ay saarto guddiyo abaara ayaa la saaray xooga ayaa la ururiyey xooga aanan runtii hordhaca oo runtii muujinaya khatar ayaa soo baxaya waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis markaan iskaalmaysanno oo bulshada inteeda kaleetana la wadaagno inaan ka gudbi doonno marxalada kuwaan oo kale iyo kuwa ka daranba wayna soo mareen waxaan rajaynayaa isku duubnida iyo midnimada in looga gudbo waxaan sidoo kaleeto dawladda Puntland ay caddaynaysaa inay dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ah iyo cid walba iyo dawladaha jaarka ahba inay la shaqayn doonto sidii abaarahaas looga gudbi lahaa waxaad ogtihiin xoolaheennii waxay u gudbeen xuduudda ayay ka gudbeen Ethiopia ayay ku jiraan reserve area jiraan waxay u gudbayaan maamulada kaleeto waxay ka soo gudbayaan maamulada kaleeto maamulo kale imaanaya hadday abaari timaado waxaa la rabaa in la isla kaalmaysto maxaa yeelay waa arrimo bini'aadanimo oo laga wada shaqeeyo waxaan sidoo kaleeto ka codsanayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed haddii markuu baadka iyo biyuhu yaraado waxaa abuurma khilaafaad waxaa dhici karta in isqoonsi dhaco in lagu dagaalamo baadka iyo biyaha yar waxaan rajaynayaa iyadana colaadaha ka dhasha dhibaatooyinku markay jiraan iyagana in laga waantoobo oo midnimada iyo wadajirka iyo wanaagga laga shaqeeyo waxaan u hambaleynayaa dhammaan cid walba oo Soomaali ah meel kasta ay joogto waxaan runtii ilaahay ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo deganaan iyo calanka buluugan oo ilmada laga tiro oo dawlad adag oo mustaqbalka ummaddan ka shaqeysa ummaddan ilaahay inuu siiyo waxaan ku boorinayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay iska kaalmaystaan sidii ummadda loogu adeegi lahaa waxaan u hambaleynayaa dawladda ka dhalatay magaalada Muqdisho oo federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay xilkooda ku asturo oo ay noqdaan kuwa u adeega bulshadooda waxaanan caddaynaynaa haddaan reer Puntland nahay dawlad ahaan iyo shacabba inaan qayb ka qaadan doono yagleelidda dawladda federaalka ah la dhaqanka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo dhammaan u adeegidda bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo haddii aanu dhaanno dhinaca baadka iyo biyaha u soo guura deegaanadeena inay nabad u soo degaan
waxaan kaloo iyagana ka codsanaynaa haddii dadka reer puntland ay tagaan degaano kaleeto ay kula noolaadaan si nabad ah oo deganaan ah oo ay wada jirka ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay wada ilaaliyaan aad iyo aad baad u baahsan tihiin maanta khudbad badan kumaanan talagelin hambalyo weeye waxaan si gaara ugu hambalyaynayaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee dhaliyey xorriyadda una taagan ilaalinta difaaca iyo dadka haddana ku jira buuraha iyo degaanada adag ee ka ilaalinaya cadowga gudaha waxaad ogtihiin soomaaliya maanta waxaa haysta waa cadow gudaha ka jira oo xag jir ah arrintaas ayaa ka xoog badatay ilaalintii xuduudaha maxaa yeelay baddeennii iyo berrigeennii iyo xuduudaheenniiba waa bayla dowladda soomaaliyeed waxaa la rajaynaynaa inay ku filnaato laakiin marka ugu horraysa waa inay cadowga gudaha ee dhexdeeda jooga tabteeda yaqaana inay meel uga soo wada jeesato guul baan ii rajaynayaa horumar baan ii rajaynayaa ciidamadana si gaara ayaan u salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu